deegaanka Tuureeq ayaa maanta waxaa soo gaaray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland iyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar iyagoona gaaray taliska ciidanka Soomaaliland oo ku leeyahay Tuureeq. Wararkaasi waxaa ka hadlay taliyaha Gabari ciidanka Soomaaliland Cali Barre. waa nabadgelyo ayuu ku sugan yahay iyo gobolkuba. milishiya beeleedka Puntland waxay isku dayeen ilaa 7 jeer inay soo weeraraan ciidanka qaranka, laakiin ciidanka qaranka ayaa dulqaad muujiyay oo baajiyay in dagaal dhaco. 3 jeerna weerar abaabulan oo laga soo shaqeeyay bay soo qaadeen, mar wax ku soo qaadeen ciidan howlgal xaabo ugu baxay. 2 jeerna si toos ah ay jiida hore ugu soo qaadeen. halkan aad joogtaan waa Tuureeq, magaalada waa soo aragteen 7 kiiloomitir iyo magaaladu iyo halkan isku jiraan. annaga iyo ciidanka naga soo horjeedana 7 kiiloomitir baan isku jiraa. Gudqabo baa la yiraahdaa tuulada xagga naga xigta 7 kiiloomitir baan isku jiraa. marka Burca laga soo qaado ilaa halka aan joogno 22 sano ku nimid. 22 sano marba meel soo degan waa Burco la soo qaado. international community halkan ay ogol yihiin madaxweynaha amarkeenu halkaas uu nagu siiyay. bal waxa haray ha haro laakiin nabad bacda salaam anigu waxaan u kacay kelmad mahadnaqa oo u jeedinayo ka bilow taliyaha ciidanka qaranka iyo janaaladiisa kale saraakiishiisa sare iyo ragga ku sugan jiidanta Tuureeq. mid waxa weeye ciidanka qaranku sida looga dhawaajiyay cid ma gardaraystaan, laakiin sidoo faraya dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland cidda ku soo gardaroota qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayay jawaab siiyaan. Qaaliban ama deegaankan Tuureeq hadda waxaa ka soconaya 3 mashruuc oo waaweyn oo ay ku baxayso lacag ilaa $700,000 ah. MCH-kii ama centralkii loogu talagalay hooyadii dhallaanku madaxweyne ku-xigeenka ayaa noo dhagax dhigay, maantana waa dhammaystiran yahay. shaqadii baa ka socota. waxaan jecelnahay insha Allah taala hadda waqti waa insha Allah sii martaan. madaxweynuhu nabad buu ku baaqay, maaha macnaheedu nabadda lagu baaqay waxa weeye dalkan inuu joognaa waa dalka Soomaaliland lagana tagi maayo. waan ciidankuna waa joogaya, cid kastana waa loo sheegay, international community waa og yihiin. 4 qodob bayna ku dhex galeen, 4tii qodobna madaxweynuhu waa aqbalay. dhacdada nabadii waa imanaysaa, laakiin waxa fiican nabaddu inay timaado inta khasaaruhu yar yahay. haddii Cabdi Weli diiday ina caami haday nabad rabina indhahooda shara nabaddu dhacaysa. marka waxa fiican inta khasaaruhu yar yahay inay nabaddu aynu nabad qaadano. ismada reer Puntland waxa weeye ismada ugu fiican aad u fiican oo wax kala ay u badan yihiin. iyagana waxaan u sheegaynaa waxa weeye war dagaal waxba tari maayo. Cabdi Weli iyo ina caami koorsiibay rabaan. Tuureeq waa laga qaxay. hadda markaan marina waxaan Tuureeq waa taa in dagaal ka dhacay in kalaba kama warayaan 7 kiiloomitir. intaan ka aqaano dee adduunyada iyo dhulkaan joogay 59 wadan baan jaamacadooga ka hadlay. ciidamo ama bilaysan noqdaan ama military ha noqdaan meel walba 2 amuurood bay u taagan yihiin. mid waxa ugu horeysa waxa weeye daafac wadante xadka wadanka inay daafacaan iyo nabadgelyada wadanka gudihiisa inay ilaaliyaan. taasi waa ta halkan idin keentay oo de mas'uuliyadda aad garanaysaan halkan idin keentay dadka reer Soomaaliland inta wadanka joogto oo de gudoomiyuhu aad uga warhayo iyo inta iyada kumanaanka ah ee dibadda joogta boqolaalka kuna dibadda joogtana aad iyo aad ayaanu idinku mahadnaqaynaa. nabadgelyo aan daafac lahayna waa la iska soo jeedi. kolka peace through strength weeyi waxaynu isku ognahay idinkuna aad noo sheegteen.
marka allah idinla jiro aad iyo aad kashka iyo laabta ayaan anu idinku farxay markaan idin arkay